Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooro bandowgii dawladdu ku soo rogtay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa habeennimadii xalay ka dhaqan galay ciidamada ayaa lagu daadiyay qaybo kamid ah magaalada warkii Xaliimo Yari oo weli loo dhigtaagayo iyo doorashada dawladda federaalka oo in ay dib u dhigto aad loo hadalhayo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa taliyihii hore ee ciidanka ilaalada safaaradda Turkida ee magaalada Muqdisho oo xil culus loo magacaabay faahfaahinta jagada uu helay iyo taariikh ahaan waxa laga yaqaanay shaqooyinkiisii 6 nin oo fagaare ku yaala degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose lagu toogtay iyadoo lagu sheegay inay ahaayeen kuwa basaasiin ahaa xogta laga helay ayaan faahfaahinno idinkaga soo gudbin doonaa eegis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye kuna eedeeyay madaxtooyada Soomaaliya inay afqabasho ku bilowday xorriyadda hadalka maxkamadda gobolka Banaadir waxay aqbashay in xabsiga lagu celiyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo saacado ka hor iyagu maxkamadda ka soo muuqday dhac ka bilowday Puntland gaadiid ay qabsadeen ciidamada Puntland cabsida ka jirta gaalkacyo iyo deegaanada qaar TPLF ayaa weli saameynteeda muuqata taas oo Soomaaliya in ay galaangal ku leeyihiin lagu eedeeyay qodobka dibaddana waxaa ugu dooroon Kuuriyada Koonfureed doorashadii loo dareeray cudurka coronavirus iyo saameyntiisa ayaa hadda laga baqanaya u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta taariikhdu waa 16 bisha afraad ee Abriil sanada 2020 warkii oo dhan aan ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa la soo sheegay in habeennimadii xalay uu ka dhaqan galay bandowgii dawladdu ay ku soo rogtay inkastoo badi dadku ay sidii la filayay goor hore oo maqribnimadii ahayd xaroodeen haddana waxaa magaalada meelo kamid ah la sheegay inay caadi u shaqeynayeen ciidamo fara badan ayaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo dhoobtay wadooyinka muhiimka ah sida Maka al-Mukarrama wadada Sodonka tan wadnaha iyo wadada warshadaha kuwaas oo dadka u diidayay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa weli laga dhursugaya in ay ku dhawaaqdo muddo kororsiga taas oo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yari la leeyahay dawladdu waxa ay shaacid doontaa in 2 sano doorashada dib loo dhigay maadaama la leeyahay arrimaha cudurka corona iyo la dagaalankiisa dawladdu ay ku mashquulayso qaar kamid ah indheergaradka dhanka siyaasadda waxay sheegeen in taas aysan noqon karin mid loo qeyl heli karo iyadoona mucaaradka dawladdu ay taasi diidan yihiin dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay caburin uu sheegay in ay la kulmayaan xilligan la taagan yahay baxda saxaafadda madaxa bannaan waxa uu sheegay Xasan Sheekh inay tahay wax laga xumaado arrimaha soo kordhay xariga wariyaha ka tirsan idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho in loo hanjabo oo la xiro saxafiyiinta si loo aamusiyo macaawinayso dimuqraadiyadda dalkeena aan jecelnahay ee Soomaaliya xariga wariyaha weyn ee Master Gurbiye kana tirsan Goobjoog waa calaamad muujinaysa dhaqan kalitalisnimo oo socda sidaas waxa yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalka xildhibaan sharafeedka golaha shacabka ayaa waxa uu imaanaya waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mid uu kaga qayb noqonayo xubnaha mucaaradka oo dhankooda ku biiriyay in ay cambaareynayaan xariga wariye Cabdicasiis Gurbiye nabad iyo nolol ayaana lagu eedeeyay gaar ahaan xafiiska madaxweyne Farmaajo in uu ka dambeeyo xariga loo geystay wariyahaasi waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan warbaahinta wararka maanta qaybaha dhexe ayaana soo gaarnay war ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee Soomaaliyeed qaybtooda Galmudug ayaa hoggaanka ilaalinta canshuuraadka Galmudug waxa loo magacaabay Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Cali hoggaanka la magacaabay ee canshuuraha Galmudug ayaa waxa hadda la leeyahay waa mid si weyn dhanka ciidamada laga yaqaanay wuxuu hore u soo noqday taliyaha ciidanka ilaalada safaaradda ee Turkida ku leedahay magaalada Muqdisho wuxuu sidoo kale soo noqday taliyaha saadka guutada ciidanka labisan ee nabad sugidda taliyaha ciidanka howlgelinta laanta dhexe ee canshuuraadka gobolka Banaadir ayuu sidoo kale soo noqday iyadoo markii dambe uu ahaa taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb wuxuuna sidoo kale ahaa taliyaha xasilinta ciidamada ee magaaladaasi isagoo xilkaas dhawaan iska wareejiyay haddaba magacaabistiisa ayaa Gaashaanle
cabdulaahi xasan cali waxaa la leeyahay waxa soo dhaweeyey inta badan xubnaha ciidamada ee ku sugan deegaanada galmudug gaashaanle sare cabdilkariim xuseen macalim oo ah taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug ayaana u igmaday gaashaanlaha la magacaabay cabdulaahi xasan cali in uu kasoo dhalaalo shaqadaas uuna rajo ka qabo mid kasoo bixi kara howshaas loo igmaday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye axmed qoorqoor ayaa wax ka ogaa sida la sheegay magacaabidda sargaalkan iyadoona isbedello dhanka ciidamada iyo maamuladaba ay jiri doonaan waxaana dhowaan la magacaabay sidoo kale gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa degmada Guraceel ee isla gobolka Galgaduud shabakada wararka maanta ayaad weli la socotaan bal markan saddex agaasimi ayaa la sheegay in ay hadda wajahayaan xaalad adag kuwaas oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyr hogaamiyo xafiiska xeer ilaalinta iyo sida ay kiiskooda ula wareegeen ayaana hadda mashaqada ay sii cusleen kartaa maxkamadda gobolka Banaadir ayaa saacado ka hor dhageysatay dacwad ka dhana agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha caafimaadka iyo midda kalluumeysiga xukuumadda Soomaaliya waxaana uu xafiiska xeer ilaalinta uu dacwad ku soo oogay xubnahan dalbaday in la siiyo muddo isbuuc ah oo ay baaritaano dheeraad ku sameeyaan taas oo ay ugu dambeyntii maxkamaddu aqbashay waxaana taasi bedelkeeda la amray in xabsiga lagu celiyo mas'uuliyiintani waxa lagu eedeeyay musuqmaasuq ballaaran inay sameeyeen xubnahan la xiray kuwaas oo la tilmaamay in hadda ay la kulmi karaan bixinta lacago iyo waliba ganaax xabsi ah cudurka coronavirus-ka inay kaga faa'iideysteen oo ay wax isdamamarin ballaaran sameeyeen ayaana lagu soo eedeeyay xubnahan la xiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaana amarka lagu xiray shakhsiyaadkan bixiyay sida la leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa geed dheer iyo mid gaaban waxay u koreysaa ilaa xad sidii ay kaga hortagi lahayd wax kasta oo keeni kara in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo jeeb qaldan lacagaha iyo qalabka si qaldan loo isticmaalayo qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal bal aan ka hormariyo ururka al-shabaab ayaa waxa ay barahooda internetka ku faafiyeen in la toogtay 6 nin oo ay ku sheegeen inay ahaayeen basaaseen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose fagaaro ku yaalaayana la sheegay in lagu dilay jawaasiistan oo la shaqeynayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada sida ay warka u dhigeen shabaabka waxa ay al-shabaab sheegeen garsoorkoodu in ay ku cadaatay falka lagu soo eedeeyay shakhsiyaadkan la toogtay 6 nin ayaa ay ahaayeen sida la sheegay rag la dilay oo 3 dawladda ayaa sirdoon ay u ahaayeen sida lagu eedeeyay 2 koonfur galbeed halka midna uu Jubbaland basaas u ahaa Maxamed Iidow Aadan oo loo yaqaanay Tareeso Hilowle Bashiir Aadan Maxamed Cali Madkeerow oo Qoryooley loo yaqaanay Xasan Haafowsanay Aadan Cabdullaahi Xaji Aadan Borow iyo waliba Cusmaan Cabdulla Afrax ayaana shabaabku ay ku qaarajiyeen degmada Jamaame ma hayno xoga ka baxsan oo cadeynay rag la toogtay inay ahaayeen sirdoon ama basaasiin dhinacyadaas lagu eedeeyay la shaqeyn jiray marar badan ayaa sidaan oo kale ururka al-shabaab ay toogasho kaga fuliyeen qaybo kamida deegaanada ay xukumaan iyadoona inta badan dhibaatooyinka ay si laba jibaarmeen dhinaca kale 24 saac la soo dhaafay magaalada Gaalkacyo waxaa qaybta Puntland ay ka maamusho la sheegay in 3 gaadiid oo 2 kamida ay u kireysnaayeen hay'adda Save the Children iyo UNHCR la qafaashay ciidamo ka tirsan Puntland ayaana arintaas lagu eedeeyay qaybtooda gobolka Mudug warar madax bannaan ayaa sheegaya in arintan walaac ballaaran ay ku abuurtay hay'adahan isla markaana gaadiidkooda la weeraray ma cadda sida ay kaga falcelin doonaan maamulka Puntland ee gobolka Mudug madaxdooda ku sugan halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa warbaahinta wararka maanta bal markan qodobka dibadda Kuuriyada Koonfureed doorashada ayaa si caadi dadku ay u dhiibteen mar kale ayuu taagan yahay Moon Jae-in madaxweynaha South Korea iyadoona xisbiga dimuqraadiga oo ninkaas hoggaanka yahay dadku waxay sheegeen in caabuqa corona iyadoo laga taxadirayay haddana doorashada loo dareeray xaqiiqatan waxa la leeyahay madaxweyne Moon ayaa hadda waxa uu rabaa mar kale in hoggaanka uu ku soo laabto hase ahaatee tirinta doorashada shalay arbacadii dhacday ayaa hadda la soo tabinaya in ay jiraan saameyn kale Meng Ju Zeyok oo ah ganacsade caan ka ah magaalada Seoul ayaa sidoo kale la leeyahay
waa mid saameyn ku leh doorashada. Majalada The Independent ee Ingiriiska laga qoro ayaa warbixin ka daabacday doorashadan iyadoona sheegtay in fadeexado badan ay Moon Jae-in ku hareeraysan yihiin inuu soo laabtana ay adag tahay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta. intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno, nabadgelyo.